saaka niman baa halkan igala soo hadlayay waxay lahaayeen orow halkaa iyo halkaa dhufaysyo kaa ku leexo guluf buu kala hortagay saaka 6 subaxnimo ayaa halkaa la isku helay meel 6 kiiloomitir dhaban saar u jirtaa la isku helay waa la jabiyay magaaladiina gacanta waxa ku haya ciidanka iyagina waxa u yaaceen ilaa tuulada la yiraahdo balahara faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal culus oo ilaa saaka ka socda duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasoo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka SSC dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in xoogiisu uu ka socdo bariga iyo galbeedka magaalada oo haatan ay isku farasaarayaan ciidamada labada dhinac isla markaana ay xabadda ugu culus ay ka dhacayso iyadoo dhawaaqa rasaasta laga maqlayo meel aad uga fog halka dagaalku uu ka socdo wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka saaka ay soo qaadeen ciidamada Soomaaliland oo la sheegay in ujeedkoodu uu ahaa inay la wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidamada beeleed ku sugnaa duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaas oo aaday magaalada Garowe kadibna dagaalku sidaasi ku qarxay ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalka la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo ciidamada deegaanka SSC ay sheegeen inay la wareegeen gaadiid kuwa dagaalka balse arintaasi Soomaaliland ayaa beenisay ayadoona shaacisay in dagaalka ay ku gacan sareyso ciidamada deegaanka SSC ayaa tilmaamay in dagaalka maanta ay sidoo kale ku direen saraakiil sarsare oo ka tirsan kuwa Soomaaliland balse ma jiro cid cadeyn karta sheegashada ciidamada SSC Soomaaliland ayaa dhankeeda shaacisay in ciidamada deegaanka ay kala wareegeen dhul fara badan oo horey gacanta ay ugu hayeen ciidamada beeleedka dhulbahante iyo sidoo kale gaadiid dagaal waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka Soomaaliland macadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka oo ka madax bannaan sheegashada labada dhinac balse xogo hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in ka badan 20 qof ay ku dhinteen dagaalka oo ay ku jiraan saraakiil caana kuwa kalena ay ku dhaawacmeen xaaladda ayaa haatan mid kacsan waxaana lagu soo waramayaa in wali dagaalku uu socdo isla markaana ay gurmadyo helayaan ciidamada labada dhinac walow xalay ciidamada beeleed ka tirsan kuwa SSC oo ka soo jeeda magaalada Garowe ay xalay ka bixeen goobta saaka dagaalka ciidamada Soomaaliland ay ku soo qaadeen dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safaran hore loo sii shaacin waxa uu ku tagay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana xogo hoose ay sheegayaan in madaxweynuhu uu ku wajahan yahay magaalada Gooja Cadde oo saaka dagaalku ilaa hadda uu ka socdo